maanta waxaan focus ka saari doonaa waxa loo yaqaan xirfadda loo yaqaan codaynta ama voice over. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan u haysanba inay xirfad tahay oo wax ka mid ah waxyaabaha shaqada isaga dhacday inay tahay. Marka waxaan rabnaa inaan noo sharaxdo waa maxay horta voice over, maxaa la yidhaha voice over ama codayn. Ma aaminsantahay in qof kasta oo jaamacad dhigto oo 4 sano jaamacadda maro ama waxbarashadii asaasiga ah oo dhan uu soo qaato, mase waxay kula tahay qofku inuu xirfad xooga saaro annagoo og xirfadaha qaar inay waqti kooban lagu baran karo. marka xitaa hadduu hibo u leeyahay macnaheedu waxaa waaye inuu barto waa aad u fiican tahay. xitaa hadduu hibo leeyahay oo hibo cod fiican uu leeyahay ma noqon karo voice over. laakiin wax fudud oo maxaan ku yiraahdaa shaqada xitaa ay ku soo raadsanayso ama adiga aad shaqo abuuran karto oo horumar siimaan karto waxaa waaye inaad xirfad barato waaye. waxaa noo sheegtay inay jiraan softwares qofku uu isticmaali karo oo la xiriira hawshan. marka maxaa ka mid ah softwarada ugu muhiimsan oo weliba sida bilaashka loo heli karo. marka codkan oo voice overka ama codaynta ah ee muuqaalada dul saara qaybo muu kala baxaa hadday jirto maxay noqonayaan qaybahaas uu kala bixi karo.